السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذكينا الشيخ عبد الكريم شيخ عبد الله محمد iyo dhammaan ardayda iyo asxaabta Macad ibn Malik للغة العربية بعد السلام إن شاء الله تعالى waxaan rabaa galabta inaan halkan ka soo jeediyo cashar ka mid ah casharadeen muraajacada kitaabkeenii معلم الإعراب sharaxa ajrumiha waxaan ku soo jirnay baab معرفة علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب ayaan ku soo jirnay للرفع 4 علامات الضمة والواو والألف والنون ضمada horey ayaan uga soo hadalnay insha Allah taala waxaan rabaa inaan halkan galabta ka soo jeediyo calaamada lamaad ee rafaca ay leedahay ah wawda wa amal wawdi fatakunu calaamatan lirraf fi mawdi'ayn fi jam'i al-mudhakkar as-salim wa fi al-asma' al-khamsati wawdu waxay ka mid tahay calaamatul i'raab waxayna calaamo u tahay rafaca waxayna degtaa laba boos labadaas boosna waa jam'u mudhakkar as-salim iyo asma'ul khamsa تعريف جمع المذكر السالم هو ما كيوا يدل كتسيي على أكثر من 2 بزيادة واو ونون في حالة الرفع أو ياء ونون في حالة النصب والجر وحال يرى تعريف كأمقي هذا جمع المذكر السالم ومثل كتسيي وحكبضا لبو يضع لغو زيادين واو ينون حالة لقودايو أما أرفع سنيهي حالة la kordhigayo xaaladda la hoos dhigayana lagu siyaadinayo ya iyo nuun lagu siyaadinayo mithla sida muslimun mufradka waxa muslimun ayuu ahaa caamilan gelinayna jaa waxay muslimun muslimka ayaa yimid waa hal shakhsi oo mufrada oo mudhakkar ah jaa al muslimuna jaa waxay yimaadeen al muslimuna kuwii muslimiinta ah waaw iyo nuun ayaan ku darnay waa xaalatu rafcan joognaa xaalatu nasba waxaan leenahay ra'aytul muslimiina ra'aytu waxaan soo arkay al muslimiina kuwa muslimiinta ahaa marartu bil muslimiina xaalatu jarkana sidaas waay mujtahidun waa mufrad jaa mujtahidun jaa waxa yimid mujtahidun mid dadaalaya jaa al mujtahiduna jaa waxa yimaadeen al mujtahiduna kuwa dadaalaya waawdaas iyo nuuntaas gadaal uga darayna markaan jamcu mudhakkar saalim aan rabnay inaan ka samayno oo xaalatu rafca jooga xaalatu nasbana waxaan leenahay ra'aytul mujtahidiina ra'aytu waxaan arkay al mujtahidiina kuwii dadaalayeen xaalatu jarna waxaan leenahay marartu bil mujtahidiina marartu waxaan soo maray bil mujtahidiina ayaan soo maray iyadaas waxay wakiil ka tahay fatxa ayay wakiil ka tahay labada marba ya ayaa lagu nasbiyaa laguna jiraa mithaalu jam'il mudhakkar as-salim fi nahw waxaan leenahay farihal mujtahiduuna fariha waxa farxeen al mujtahiduuna kuwii dadaalaya ayaa farxeen halkaan markaan joogno waxaan samaynaynaa marka in aan tirino kalimaadkii tacdaadul kalimaat farixa waa kelima almujtahiduunana waa kelima waxaan samaynaynaa haddana tasniiful kalimaat inaan kalimaadkii noocayno isim waa kelimo xarafna waa kelimo ficilna waa kelimo marka waxaan leeyahay farixa waa ficil maadi waana mabni almujtahiduunana واسم وانا معرب اعرابنا مركه فرح المجتهدون فرح فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الاعراب المجتهدون فاعل فرح مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركه وحرف حركه كنائبه ووضاس وحي نائب كتهي اما وكيل كتهي ضمدي لانه جمع المذكر السالم ما ناب فيه حرف عن حركه والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد nuuntana waxay ciwad ka tahay ama bedel ka tahay isimkii mufradka ahaa oo muslimun mujtahidun markaan aan dhahaynay nuunta halkaas ka dhawaaqaysay waataan ku soo marnay ajrumiyaha nuunun saakinatun zaa'idatun talxaqu aakhir al-ismi lafdan wa tufaariqu khadan waa nuun saakina oo zaa'ida waxayna dhacdaa isimka gadaashiisa marka lagu dhawaaqay laakiin marka la qorayo maya marka isimka maxaa la jamcu mudhakkar saalim wuxuu leeyahay mulxaqaat wax la yiraahdo leeyahay oo la haleeshiyo laakiin aan ahayn xaqiiqi aan ahayn jamcu mudhakkar saalim xaqiiqi aan ahayn laana mulxaqun fi jamcu mudhakkar saalim leeyahay sida ciliyuun oo kale iyo wa ulu iyo waxaas la mid ah istirooyinka 90 iyo 20 waxaas la mid ah waa ka gudbaynaa waxaan marka u gudbaynaa xaaladda oo la nasbinayo jamcu mudhakkar saalim fi xaalati an-nasb صاحبت المجتهدين صاحبت وحن لا صاحبي المجتهدين كوي ددالاي marka صاحب waa ficil maadi
وصحابة وحن لا وكلمة تأذاسنا وكلمة المجتهدين وكلمة وسدح كلمة صحابة وفعل ماضي ومبنية تأذانا فاعل وانا مبني أيضا المجتهدين واسم معربة صاحبته فعل وفاعل المجتهدين مفعول به منصوب علامة النصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد سداس أيضا نغنى إعراب كذا حالة الجر كهدان تغنى على مثال الجمع المذكر السالم في حالة الجر نحو السدواية قل للمؤمنين قل ده صوبنا صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فاعلك وأنت أو مخاطبة أيها النبي عليه الصلاة والسلام الولا خدابتما أيها كجرة ماش مستترة قول مركب حالنا وكلمة هذا سيدنا هراء تعداد الكلمة سمينه أو أن كلمة دي أنترينه قول وكلمة فاعلك أو مستتر كان وكلمة لامت وكلمة للمؤمنين وكلمة أفر كلمة مكاسنا قول للمؤمنين قول فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت للمؤمنين اللام حرف جر المؤمنين مجرور باللام وعلامة جر الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد الجار والمجرور متعلق بقل أيام فتح على المكاس وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني يا درة بين اللغات مصونة أبدا وذا وعد من الرحمن.